cabdullaahi maxamed cali sow soo dhawow see ula socotaan siyaasadda Soomaaliya iyo halka ay maraysa haddii aad tihiin bulshada iyo Soomaalida ku dhaqan dalka Norway. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Markuu warayso waa ku mahadsan tahay inaan maanta ay suura gasho in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba iga daawadaan iga dhageystaan. haddaan nahay dadka reer Norway Soomaaliya waa wadan aan anagu waa wadankeeni waa mid aad u xiiseyno horumarkeeda dhinaca dhaqaale dhinaca nabadgelyo dhinaca horumarinba ha noqoto doorasho ha noqoto wadan dhisid ha noqoto maaragtay difaac intaban waa mid dadku ay xiiseynayaan lana garab taagayaan waayahay arrimaha doorashooyinka oo wax laga bedelay ayaa Soomaaliya laga hirgeliyay doorashadii dadbaneed ayaa waxa lagu bedelay doorasho qof iyo cod ah golihii deegaanka xamar ayaa dhawaan la qabtay oo dhamaadka sanadkii hore dhacay haatanna in doorasho isku sadkan laga qabto koonfur galbeed Hirshabeelle waqooyi bari iyo maamul goboleedyada oo dhan ayaa soconaysa see ula socotaan arrimahaasi horta doorashada qof iyo cod ahay waa mid xasaasi ah waa mid muhiim ah waa mid u baahan in wadanku uu gaaro waana tan kaliya ee ummadda bulshada wadanka ku nool ay ku dooran karaan cidda ay doonayaan waana ahayn mid loo dooro ama dhowr qofood oo kooban ay u dooraan laakiin ayagu ay doortaan doorashada ka dhici doonto isteedyada hadda adigu aad soo magac qaadana waa mid muhiim ah tii gobolka Banaadir anigu marqaati baan ka ahaa waan joogay waan arkay safkii loogu jiray ummadda sida ay xiiseynaysay qofka inuu maaragtay ku faanayay inuu yiraahdo codkaygan dhiibtay waana awoodda ay shacabku ay leeyihiin waxay tahay in ayagu ay dooran karaan marka taasina waa midaan ku guubaabinayno qof kasta ku nool isteedyada ka dhacaysa doorashada inay ka qayb qaataan inay codkooda dhiibtaan in cid alle cid ay doontaan ay doortaan oo aan loo doorin maxaa yeelay ciddii ku maamuli lahayd ama ku maamuli doontaa haddaadan dooran karin dee sidii la raba lagu doorayaa taasina waa mid aan wanaagsanayn kana guubaabinayno ummadda inay ka hortagaan maxay ka dhigan tahay in meesha laga saaro ergooyin kooban in ay soo doortaan siyaasiyiinta qabiilada matalaya ee ama baarlamaanka ka mid noqonayay ama dawladaba uu soo beerayay oo meesha laga saaro doorashadii dadbaneed Soomaaliya faa'iidada leedahay waxay tahay waxa meesha ka baxaysa qaybinta la yiraahdo 4.5 ee lagu qaybsado qabiil wadanna qabiil lagu ma dhiso qaran qabiil lagu ma dhiso ummadna qabiil isuma keento waxa ummad isku keenaa waxay tahay dareenka qarannimada jacaylka wadaniyada iyo bini'aadanimada dadka walaalaha ee wada degan haddii laakiin la yiraahdo qolo walba dhulka ay degan tahay qabiil ahaan ayada ha u taliso dee wadankii waa wadan intaasoo qabiil ka kooban qabiil walbana dhulkiisii maamulanaya taasina qaran ma waa qabiil dhisid sida aawadeed ayay wanaagsan tahay muhiimna u tahay in dadku ay codeeyaan qofka ay rabaan tartan loo galo ayagii saf loo soo galo dadkii raba in loo codeeyaahi ay banaankiisa soo dhigaan dimuqraadiyaddana sida ay ku dhisan tahay waa sida waayahay mustacalas in awood kasta oo dawladdu ama hore ugu dhaqaaqdo sidaad arkaysaan awoodsiin aad u badan ayaa la gelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed diyaarado iyo dabaabaad ayaa loo keenay bandhigii 12kii April ay sameynayeen waa la wada socoteen sidoo kale dalka shidaal ayaa loo qodayaa oo loo soo saarayaa oo gabagabo meel fiican maraya wax ka talaabo kasta oo horay dawladnimadu ay u qaado dad ayaa lugaha ku dhagan oo ka been sheegaya dawladnimada iyo dadaalada socda see meesha looga saari karaa waxaa tihiin muwaadiniintii dalkan u dhasho aqoon-yahanada ay wax u bartay isla markaasna dimuqraadiyadda iyo dhismayaasha dawladaha wax badan ka oga horta walaalo waxaynu ku jirnaa xilli aad iyo aad u adag adduunka oo dhan baa wuxuu noqday wadan walba inuu militarigiisii dhisto wadankan anaga aan ku noolnahay wadankayga labaad ee Norway markii la yiraahdo maalinka qarannimada wadanka
waa maalin shicibeed, waa maalin caruureed, waa maalin faamileed, mid military lasoo banaan dhiga maaha. haddana investmentiga ugu weyn ee hadda Norway ay sameynaysaa waa dhisidii militariga, xoojintii xuduudaha iyo abaabulka istifaaca. marka wadankii Soomaaliya inay ayagu istifaacaan, iska difaacaan argagixisada, iska difaacaan cadow shisheeye iyo mid sokeeyaba, iska difaacaanna waxyaabaha mideynaya ee ah inay wadan Soomaaliya uu yahay, oo cadowgiisuna uu badan yahay, saaxiibadiisuna iyaguna ay badan yihiin oo la isku qasin. dadka ka soo horjeeda marka waxaan leeyahay wadanka si idinku berrito aad u maamushaan, ugu noolaataan, waa in cadowga laga safeeyo, waa in argagixisada laga saaraa, waa in wadanku uu noqdo wadan la iskaga dhex gooshi karo. maaha in diyaarad loo kala raaco, maaha maaragtay in loo kala dhunto, maaha qofka inuu gurigiisu difaacyo ku wareejiya maaha. waa in wadanku uu ciidan leeyahay, nabadgelyo leeyahay, mas-uuliyaddiisiina la qaado. xoogga dalka Soomaaliyeedna waa awoodda iyo xilka saaran inay wadanka difaacaan, qof kastoo wadan ku noolna oo xorriyo ku noolaado. waayahay propagandada iyo dowladda in madaxdeedii lagu dhaganaado see looga gudbi karaa? horta waa ku faraxsan inaad su-aashan weydiiso, sababtoo ah waxaan hadda arkayay oo ceebna aniga aan u arkayay, waxaan u arkaa ceeb, waxaan u arkaa anshax xumo, waxaan u arkaa midaan dhaqanka Soomaaliyeed ahayn oo lagu yaqaanay dadka Soomaaliyeed in ay noqoto tartankii beenta. tusaale ahaan hadda marwada madaxweynaha ayaan waxaan arkaa iyadoo la wareejinayo oo la leeyahay madaxweyne xasan sheekh marwadiisa waxay ku xiran tahay Norway, intaasoo milyan dollar baa dowladii Norway ku haysataa. waa qof aan hadda wadankii Norway imaan, ee gurigeedii joogta, ee wadankeedii joogta, ee marwadeedii ah, baa la aasaasay been oo la wareejinayo. waana mid maaragta hore aan loo aqoon, waa mid Soomaalida dhaqankeeda aysan ku jirin, waana mid u baahan dadka waxaan sameynayaan inay ogaadaan wax walba inay trace leeyihiin oo raactarac ay leeyihiin. qofka been iskama abuuri karo, waa lasaga daba imaanay waqtigay noqotaba. waxaa wanaagsan marka in haddii mucaarid iyo dowladdii la kala yahay ama cadow kaloo saddexaadi uu jiro, cadowgaas saddexaadi in layskala dagaalamo, la wacyigeliyo, la yiraahdo dooda ama aan ku heshiino ama aan isku raacno waa qarannimadeenna, waa wadankii, waa maamulkiisii. laakiin been abuuris iyo hadal aan waxba ka jirin lama qaadan karo. maxaa yeele annagii dadkii oo dhan baa isoo waca wadanka Norway, intaasoo teleefon, intaasoo email, intaasoo social media lagala soo xiriiro leeyahay sidee waxu jiraan, ma marwadii wadankaa timi, maxaa noogu sheegi weydeen inaan soo dhaweyne. marka anagii waaba jeclaan lahay inay noo timaado oo aan soo dhaweyno, oo aan had iyo jeer waxaan soo dhaweynaa wasiiro, waxaan soo dhaweynaa madaxweynaha, waxaan soo dhaweynaa xildhibaano ka kala socdo isteedyo kala duwan, wasiiro isteedyo kala duwan. cid kasta anaga aan marti noo soo noqota, laakiin cidaanba qofaanba noo imaan in suuqa la geliyo inuu wadankeeni ku xiran yahay waa wax lagu qoslo, haddana wax laga xumaado. waxaana leeyahay adigaagaa waxaa sameeyay, haddaad shaksi tahay, haddaad koox tahabo, jooji. maxaa yeelay ma ogolin been abuurka wadankeena Norway aad ka sheegayso, ma ogolin been abuurka aad marwada madaxweynaha xasan sheekh ka sheegaysidna ma ogolin, kuna iloobi mayno. marka in Sahra Cumar Xasan marwada madaxweynaha propaganda intaas la eg laga sameeyo iyo in lacago loogu haysto dalka Norway, maxaa ulajeedadu ay ahayd dadka social media soo galiya calasow? horta aqoontoodii caqligooda gaarsiiyey. maxaa yeelay qofka hadduu caqli leeyahay waxyaabaha kuma dhaqmo, beenina wax socda maaha. laakiin in la yiraahdo tartankii beenta bay noqotay social media, dhibaatada ugu weyn oo jirta hadda adduunkana waa sida oo qof kasta journalist uu noqday, code of conduct ma jiro, xushmadii journalistnimada ma jiro, runtii journalistnimada ay runta ka sheegayeen ma jirto. qof walba YouTube uu samaystay, Facebook uu samaystay, AI buu soo degsaday, sawiradii buu diyaarin, wuu soo gelin, clickbaitkii bay noqotay tartankii. qofkii baa marka noqday qofkii runta sheegaya, waa qofkii beenta waday.
danta dhan oo laga leeyahayna waxay tahay in sumcad xumo lagu rido mar wasaaraha in sumcad xumo loo aasaaso madaxweyne xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh waa kasoo horjeedi kartaa fikradiisa dhihi kartaa way khaldan tahay waa madaxweynihii wadanka fikrad kala yeelan kartaa waad la doodi kartaa qoraalaad soo qori kartaa wuxuu ku khaldan yahay sheegi kartaa wuxuu ku saxsan yahay sheegi kartaa laakiin beentu waa midaynan ogolaanayn waa midaan u wanaagsanayn kalana talinaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan been la isku raaca oo la isku dabagalaahay god un bay dadku guraysaa horta dowladda Soomaaliya maaha xasan sheekh waa wasaarado waa wakaalado waa hay'ado waa ciidan waa aqoon-yahano waa jaamacado inta way isku jiraan waa shacab waa canshuur bixiyayaal waa wadankii dadka iska lahaa dadka wadanka iska lena been kugu dabageli maayaan waxa haddaad been sheegtana wax la arkaayo marka in qofkii aad abaabusho fadeexayn aan lug lahayni qiimo ma laha in maaragta la abuuro fadeexayn la leeyahay fadeexadaasi mid kale haddaan ku dano mid kale haddaan ku dano way rumoobi mayso maxaa qof kasta wuu ogyahay qof aan wadan dhan uusan tegin la yiri wuu tegay xabsi iska daayo wadankayba ma imaanba waan garan karaa marka beenta kale 4 meelaha lagu wadaahi ee laga sheegay in ay tahay mid dhibaato qaranka soo gaaraysa taa kaliya ma ahana wixii dhibaato soo gaaraysa haweenka Soomaaliyeed ee mas'uuliyiinta ah ee xilalka haya oo leh war anigu haddaan xilkan qabto waan ummadda yiraahdo u shaqee been baa leega sheegaya haddii aan yiraahdo wadankii wax ka dhis been baa leega sheegaya wadan aan haweenkiisii iyo gabdhihiisii aysan sharaf ku lahayn wadan noqon maayo sideedaba qof walba qoys buu leeyahay qof jecelna ma jiro qoyskiisa wax laga sheego qoys jecel in ayaga wax laga sheego been laga sheegana ma jiro xushmadana waxay ku jirtaa in la sharfo la xushmeeyo inaan la isu dhaafin in maaragtay gogosha la iska wasaqayn waa muhiim reerkaas waxay la mid yihiin reeraha Soomaaliyeed oo wadanka ku nool ama ha ahaadaano reer dowladeed ama ha ahaadaan reer shacab ama ha ahaadaan reer baamishtiro ama ha ahaadaan reer jaamacadeed waxay la mid yihiin reer kasta wadanka ku nool waxaan leeyahay waxay tahay xushmadiina ilaaliya oo xushmadaha kalena ha xumeynina reer Soomaaliyeed ee nool ee shaqaysta ee wadankii ku nool raba inay wadankii qayb ka qaataan in la caayo ama been laga sheegay waa waxaan la qaadan karin qof jecel ma jirin hooyadii wax laga sheego qof jecel ma jirin walaashii wax laga sheego qof jecel ma jirin in wiilkiisa wax laga sheego qof jecel ma jirin xaaskiisa wax laga sheego haddii marka adiga qof jira aysan jirin adigaagii beenta sheegaya aadan ogoleyn in hooyada iyo walaalaha iyo ilmahaagii wax laga sheego iyo ayayda ma aha inaad dadka cayso markaana waxaan dhihi lahaa waxay tahay Soomaali dhaqan bay leedahay xushmay leedahay waa wax nagula yaqaan inaan iskala weynaano beenta aan ku dhaqano runta iyo xushmada waa waxa kaliya isu kaayahay waa runta iyo xaqa aan sugu nimaadno aada u mahadsan tahay Cabdullaahi Maxamed Cali Sow oo asaga oo jooga dalka Norway igu jiray aalada muuqaal aragga aadan ugu mahadcelinahay waqtigiisa iyo ka qaybgalkiisa barnaamijka adiga mudan walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh